waxaan wanaagsan dadka daawanaya meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkan oo aan uga hadlayno soo dhaweyn xaflad la soo agaasimay oo markaasi loo sameeyey gudoomiyaha waxoogayaha dhinaca arrimaha dibadda xisbiga wadani oo si booqasho ku yimid waddanka Mareykanka haatanna jooga magaalada Minneapolis gobolka Minnesota waddanka Mareykanka waxaanu joognaa nolosha xafladaasi ka dhacayso oo lagu magacaabo hotel Ramada halkaas isugu yimid dad fara badan oo doonaya markaasi in ay wareystaan oo ay dhageystaan Dr. Maxamed Ismaan Fadal oo isagoo ah xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga wadani marka hore aan ku soo dhaweeyo hadalladii iyo khudbadii ka dhacay xafladaas aan leedahay oo aan idin dhegeysiiyo markaa kadibna dadweynuhu ay su'aalo weydiin doonaan Dr. Maxamed Ismaan Fadal وهاجي تقول يا أنت سير كوسو كوميدا برنامج كوسو حفلة دوس مي دكتور محمد اسماء أو سوي مركزي أنت نهار كويتا لما حد بدأ وطني مستر هم من مشاري وشرنا أكيسين وحنا سبنا من فترة وليكون تاجر حسب جاسي مستقبل يتصل بكل شيء سمعنا سكستان نقطة برنامج كنا طبعا تعملوا عن مرض كل دولار والله على الشارع يوم بطل oo himilada weyn mustaqbalka leh inuu noqdo yaan rajo weyn ka qabnaa xisbigaasi hadalka badin maayo tartan buu ku jiraa meesha saddex xisbi baa jira mid dawlad dabada ku haya iyo mid isagu walaahay nagaba sii hooseeyo oo isagu dagaal caynkaas aanu ku jirin waxa markaa loo baahan yahay tartanka inaan dhab u qaadano oo xisbiga dadaalka ku jira ee dhalinyarta hormoodka ka ay darban yihiin inaan dhulka kor uga qaadno maxaan samayn karaa in kastoo Soomaaliland ka fognahay laba tii wax la yiraahdaa jira labada tii waxa weeye waa tala bixin iyo taakulayn haddii tala bixin wanaagsan la inaga helo oo taakulayna aan raacino oo guddiga dhisha iskaga dhigno xisbigaasi dhulka uu ka kacaya ama dawladda lagu tiirsanaado ama meel kale hala rafto uu wada jeeraya waa aragtida aan qabo marka imika waxay nagu soo foodle doorashooyin baa nagu soo foodle doorashooyinka ay nagu soo foodle labada tii inaan maroojino oo wax iska dhalino oo si raganimo ay uga qayb galaan rag iyo dumarba yaan u waran lahaa xogayaa arrimaha dibadda waa soo dhaweynayaa intiinana waan idin mahadnaqayaa السلام عليكم بان نقول السلام على من يتبع الهدى بان ujeeday waayo niman baa inala fadhiya salaanta iyo ku male qolka wad ma tantiin السلام عليكم ورحمة الله ويا أد ما تيان آذن aynu ismaqalno saaxiibayaal waxaan idinka codsanayaa mar kale qolay baa jira telefoonadooda aad u dhacayaan sida loo kala macruufad badan yahay qolooyinkaan ka mid ahay labadii saacadood mar buu soo dhacaa suuqa iyagu xaami maaha fadlan codka xidha daqiiqadaha aynu halkan joogno si aynu kala faa'iidaysano marka dadku isu yimaado waa la kala faa'iidaystaa kelmad ama weedh aad faa'iidaysatid xataa waxbay ku tari kartaa waa hagaag waxaan soo dhaweyn doonaa mar kale isagana cabdiraxmaan odawaa soo dhow mr odawaa odawaa miyaa ka boodaa dacaawa sida shiikhii quraanka akhridaa waa maqan yahay fanaankii heesidaa waa maqan yahay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadweynaha sharafta badan ee meesha isugu yimi magacaygu waa Cabdiraxmaan Faarax marka ugu horeysa waxaa mahad mudan dadkii ka soo shaqeeyay xafladan oo soo qaban qaabiyay waxaa isagana mahad mudan xoghayaha arrimaha dibadda Dr. Fadal oo isagu xafladan loo sameeyay halkan nagu soo booqday waxa iyagana mahad mudan xildhibaanada senatorka ka socda ee Minnesota ee xisbiga Republicanka iyaguna meesha nala jooga inta ka bacday waxaan qodobo yar ayaan anigu halkan maanta ka sheegi lahaa marka ugu horeysa anigu shakhsiyan waxaan ahaa raggii ka soo shaqeeyay guushii kulmiye khaasatan waqtigii kulmiye oo luleynayay state-kan Minnesota raggii ka shaqeeyay sidii uu kulmiye u hantiyi lahaa kursiga maanta ku fadhiyo ayaan ahaa aniga iyo rag kale badan waxa ka mid ahaa oo Allah u naxariistay aan aaminsanahay maanta hadduu halkan joogi lahaa isagu laftigiisu nagu soo biiri lahaa xisbiga wadan ku soo biiri lahaa Allah u naxariistay Ismaaciil Xayraan inta waxaan kaga gudbayaa introduction ka yar inaan xoogaa qodobo yar ka ilaahdo anigoo maanta ku cusub inaan ku soo biiro xisbiga wadani shakhsiyan anigu waxaan oran lahaa ama aan ka hadli lahaa xoogaa marka ugu horeysa kaalinta aynu haddaynu nahay khudbad jooga kaalinta aynu ka qaadan karno arrimaha ku saabsan wadankii aynu asalka u lahayn oo aynu ka soo hajinay kaalinta khudbad joogu khaasatan horta anigu sidaan aaminsanahay waxa weeye dadka wadanka jooga weeye dadka isbedelka ama ka shaqayn kara ama waxyaabaha ama xataa codaynta samayn kara waa dadkii wadanka jooga annagu kaalintaan ka qaadan karno waxa weeye sidii aan ula shaqayn lahayn aynu u toosin lahayn ha noqoto xaq dhaqaale ha noqoto xaq talo iyo waxyaabaha noocaas marka khaasatan inkastoo aan idhaahno xisbiga wadani baan ahay ma noqon karno xisbiga wadani xubin khaasa ee waxaanu nahay taageerayaasha xisbiga wadani ee ka jooga gobolka Minnesota sidaa daraadeed ayaan anigu u jeclaa axsaabta kale representatives-koodu joogaan gobolka Minnesota inaynu wada shaqayn fiican wada shaqayno maadaama inteenoo dhami waxa kaliya aan ka shaqaynayno waa horumarka iyo wanaaga xagga ka samaysma takale aan ka hadlaha waxa weeye waxyaabaha aynu shakhsiyan haddaynu joogno xaggan waxyaabaha aynu ka rabno markaynu u ololeyno xag siyaasadeed waxyaabaha aynu ka rabno inay ka hirgalaan wadankii marka ugu horeysa anagu inaynu maaha keliya inaynu eegano sidii aynu magac iyo maamuus ama maal meesha ka heli lahayn intaynu ama shaqa lagu doorto meesha intaad tagtid wax ka soo qaadatid ama waxyaabaha noocaasa keliya waxa weeye inay noqoto sidii ummadda ama jiilasha soo socda ee wadanka jooga ay uga faa'iidi lahaayeen xasiloonida iyo dimuqraadiga meesha ka jira marka qodobka kale aan ka hadli lahaa waxa weeye maalinka maanta wadankii xukun baa ka jira xukuumad baa jirta inkastoo ay xukuumaddaasi waxyaabo lama dafiri karo waxyaabo badan oo fiican way jiraan oo ay qabteen laakiin waxyaabo badan oo ka dhiman ayaa jira oo waliba khaasatan maanta waxyaabahaasi ahaayeen waxyaabihii qodobka muhiimka ahaa ee wadanku ku taagna waxa qabadka ama ha noqoto wadooyin la dhiso ha noqoto horumar nooc kale oo la sameeyo waxa ka muhiimsan xasiloonida wadanka iyo horumarinta dimuqraadiyadda dawlad wanaag ayaa wax walba ka muhiimsan marka dawlad wanaag la helo iyo horumarinta dimuqraadiyadda markaasa ay nabad iman kartaa waxa qabadkuna si fiican u samaysmo marka waxyaabaha muhiimka ah marka lagu higsan karo ama dimuqraadiga iyo waxyaabaha noocaas lagu heli karo waxa weeye marka ugu horeysa waxa weeye dagaalanka
waxyaabaha aafada keeni kara oo ay ka mid yihiin qabyaaladda iyo qaraabakiilka waa laga hadlay dad badan baa ka hadlay qabyaaladda iyo qaraabakiilka waliba wadankan marka aanu ka hadalno de waa wax ku cusub xagga kaliya ma waa wax dunida oo dhan ka jira laakiin meel walba system lala dagaalamo ayaa ka jira khaasatan wadanka laftigiisa oo ka jira waxa afka qalaad waxa lagu yiraahdaa nepotism cronyism iyo patronage marka saddexdaa waxyaabood anaga waxa inagu sii beeray qabyaalad oo wadanka ka jirta wali habdhaqankii qabyaaladda ayaa wali wax lagu maamulay marka inkastoo habdhaqanka qabyaaladeed ay adag tahay in mar kale laga wada tirtiro wadankii laakiin waa muhiim in mar walba laga shaqeeyo ama saansaanteedii la bilaabo waa muhiim oo jiilasha dambe iyo intaasoo dhalinyaro oo wali hadda jaamacadihii ka soo baxaysa sidii looga tirtiri lahaa dhibaatooyinka aafada waa in waqtigeeda la bilaabo maanta waxaan usoo qaadan karaa haddaan usoo qaato wadankan aynu joogno bishan hadda aynu ku jirno waa bishii afraad waxaa loo dabaaldegayay sanad guuradii kontonaad waqtigii uu sangareeyey madaxweynihii waqtigaa jiray Lyndon Johnson oo uu sangareeyey civil rights 1964 ayuu sangareeyey civil rights in dadka madow ama dadka la takooro inay xaq ku yeeshaan wadanka sida dadka kale xaq ku yeeshaan marka anigu markaan taa isu barbar dhigo waxa weeye wadanka ama dhulka Soomaalidu joogto dhan muhiimadda maanta sida halka loola dagaalamay midab takoorka iyo dhibaatooyinka halka ka jiray in maanta loo guntado sida looga dagaalami lahaa qabyaaladda iyo qaraabakiilka meesha laga bilaabi lahaa meesha dhulka Soomaalidu degto meesha maanta ugu fiican ee wax la taaban karo ay ka jiraan waa dhulka hadda dimuqraadi iyo waxyaaba noocaasi ka bilaabmeen meesha way meeshii laga bilaabi lahaa dhulka Soomaalida sidii loola dagaalami lahaa aafada ugu xune meel walba ay Soomaali joogaan aafaysay marka anigu waxaan soo jeedin lahaa ama aan soo jeedinayaa haddaan nahay xisbiga wadani haddii aan ku guuleysano ay guuleystaan in muhiimad saari doono in lagala dagaalamo qabyaaladda iyo qaraabakiilka sidii muhiimad loo saaray civil rights ki loogu dagaalamay wadanka marka waqtiguna way u yar yahay waxyaabo badan aad uma soo diyaarin laakiin anigu xoogay wax yar man ka oran lahaa ajendaha aan jeclaan lahaa anigu maadaama maanta rabo inaan u hagalo sidii xisbiga wadani u bedeli lahaa xukunka maanta jira waxyaabo yar ayaan soo taabanaya oo aan jeclaan lahaa in xisbigu maadaama takalena waa la sheegay kullee wax la yiri fulaxantii ma mooga waxyaabo jira dana lagu dhaliilo way jiraan oo lagu dhaliilo wadani marka si aanay waxyaabahaasi nooga carqaladayn guusha soo socota waxaan jeclaan lahaa inaan xoogaa halkan ka sheego ajendaha sidii ajenda yar xoogaa 2-3 qodob oo ajenda ah oo muhiim ah ajendaha waxaanu kala qaybiyo waxa weeye horta arrimaha gudaha waxa weeye muhiim marka ugu horeysa waa in laamaha dawliga iyo awood qaybsiga la xoog la saaro waxa weeye haddii laamaha dawliga ay wada shaqeynayaan oo aanay isdheelitirin de qof qura ama laan qura haddii awoodii ku soo ururto ama qof qura awoodii ku soo ururto waa bashar qasab awoodda waa lagu takrifalaya marka maalinka maanta hadaad eegtid wadankii waxaad arkaysaa awoodihii oo dhan waxa isku soo urureen madaxtooyada iyo intii ku xeersanay marka qasab de qof hadii awood badan la siiyo bashar way ku takrifalayaan oo waxyaabo ka duwan sidii loogu baahnaa ay isticmaalayaan marka horta habeynta laamaha dawliga iyo awood qaybsiga in la helo qaynuun xadida awoodda dheeraadka ee madaxtooyada oo aanay siday doonaan ugu shaqaysan qaybaha fulinta sida ugu shaqaystaan qaybaha fulinta waxa weeye amaanka waxaad arkaysaa مثلا سوق wargeyskii haatu sidii hadda loogu duulay oo la xakameeyay waxa weeyaan ma jirto hab ama process la raacayo oo ah haddii qof laga soo dacwoonayo maxkamadii garsoorkii in laga soo shaqeeyo garsoonkii soo ansixiyo oo yiraahdo waa sidaas oo qoladaas waxbay ku xadgudubtay hal la soo xiro waxa weeye qof wasiir meel iska fadhiyo intuu fulintii amro ay oranay qofka ay soo xira marka waxyaabaha noocaas waxa keenaya de awood qaybsigii baan meeshii jirin waxa weeye hal meel qura awoodii ku soo ururtay marka waxa weeyaan
waxyaabaha waddan in laga shaqeeyo waxa weeye sidii awoodaha loo xadidi lahaa khaasatan awoodda madaxweyne iyo inta ku xeeran in la helo garsoor madax bannaan awoodaha kaliya waxyaabaha muhiimka waxa weeye garsoorku inuu ka madax bannaanaado xukuumadda madaxtooyada in la helo garsoor madax bannaan oo ilaaliya dastuurka waddanka u yaal garsoorku waa inuu noqdo garsoorkii ka turjumaya wixii dastuurka ku qoran haddii ama wax la rabo in carqalad timaado waxyaabo noocaas sidii hadda journalka ama wargeyska haatuf waxa ku dhacay waa inay noqoto marka kiiskii loo geeyo garsoorku inay eegaan inuu wixii lagu soo oogay laga turjumi karo dastuurkii ama hadday dastuurkii iyo systemkii ku xadgudbeen dee sidaa loo soo qabto haddaanay ku xadgudbine dee sidaa lagu dhaafo in muhiimadda kale waxa weeye in labada gole sharci dejinta ku shaqo leh la iswaafajiyo kaalintooda dawligaana si madax bannaan ay u gutaan waxa weeye maanta waxaa jira laba gole sharci dejina waa baarlamaanka iyo guurtida marka waxaad arkaysaa labaduba inaanay xataa iswaafaqsanayn waxaad maqlaysaa baarlamaankii ayaa ishaysta ayaa guurtidii baa loo yeeraya oo kala dhexdhexaadinaysa waxyaabo badan oo aad arkayso qaladaad badan aad dhacay marka waxyaabaha noocaasa in la sameeyo guurtida laftigeedu ay doorasho gasho oo doorasho gasho la soo doorto baarlamaankuna kulli waa doorasho baarlamaanna waa dhacaya waxyaabo noocaas oo dhan in la habeeyo ayaa loo baahan yahay marka arrimaha gudaha intaas ka baxay laakiin waxaan u soo gelay arrimaha dibadda waxyaabaha laga qaban lahaa arrimaha dibadda waa in la dejiyo qorshe dawladeed oo ku saabsan waa in arrimaha dibadda waxaan ku rabaa waa in loo dhigo farhana looga qaado shakhsiyaad aqoonteeda leh arrimaha dibadda shakhsiyaad waa in la sameeyo shakhsiyaad aqoontooda leh oo de aqoontii ay ku hagi lahaayeen arrimaha dibadda la helo waa in dhaqaale gaara loo qoondeeyo aqoonsiraadiska maanta waxaad arkaysaa waxay isku soo ururtay un keliya arrimihii wasaaraddii arrimaha dibadda waa in loo sameeyo dhaqaale gaara oo ka shaqeeya aqoonsiraadiska marka ta kalena muhiimka waxa weeye waa in labada gole ee baarlamaanka iyo gurtidu sameeyaan guddi ka kooban saddexda xisbiye qaran guddidaasina noqoto guddi dabagal ku samayn karta waxa qabadka khibrada dadka saddex inta qof loo saaray ee aqoonteeda leh waa in guddida labada gole ee baarlamaanka iyo guddidaasi noqoto guddidii ka daba gali lahayd waxa qabadka ay sameeyaan dadka loo doortay isla guddidaasina ka shaqayso budgetka loo sameeyay sidii ay u xaqiijin lahayd budgetkaas inuu si sax ah ku baxay marka arrimaha dibadda saasan ka baxay laakiin waxyaabaha kale oo muhiimka ah oo aan aaminsana xisbiga wadani inuu qaban karo waxa weeye shaqo abuuris waa in dhalinyaradii hadda in badan dhalinyaro badan ayaa ka soo baxaysa jaamacadaha haddana shaqo loo abuurin dee tahriibka iyo dhibaatadaas unbaa dhacaysa marka waa muhiim in la dejiyo qorshe dawladeed oo ku saabsan in dhalinyarada jaamacadda ka qalin jabinaysa la shaqaalaysiiyo systemka ay ku samaynayaan waxa weeye inaanay keligood samayniye waxa weeye inay iskaashi ka dhaxeeyo dawladda iyo maalqabeennada iyo ganacsiga intaasi markay iskaashadaan system ayaa loo samayn karaa sidii loogu abuuri lahaa dhalinyarada soo qalin jabinta ama dhalinyarada soo kacaysa shaqo abuuris anigu intaasaan oran lahaa maanta dee waa maalintii ugu horreysay aan ka hadlo arrintan wadani laakiin ajendahu waa inuu ajendaha noqdo waananu la shaqaynaynaa maadaama aanu aaminsanahay in xisbiga wadani uu noqon doono xisbigii dee ma odhanayo anigu kulmiya waxba may qaban kulmiya waxbay qabatay laakiin intaa ay soo gaarsiisay ayaanu annaguna ka sii hagaajinaynaa ka sii wanaajinaynaa واي أدو ما تي عبد الرحمن سنة كورا سوق هيدا بيسي وحيقول أف صومالي هذا ما أغني بقى واحد سيرتوا لك عبد الرحمن با من كلا عبد الرحمن ورير كينيا سمال لنا هذا لكن ونن نوع كينيا كل شيء ده فكابلوري الصومالي واستعمالي هذا بنوقف أحسن قرابة كيل أي كم هاي أد بنوقف ما تي هاي سيدي وانا سنادي وسوسو دوي barnaamijkiisa nin reer miya baa lagu yidhi siyaasad maxaa la yidhahdaa wuxuu leeyahay siyaasad waxaan u malaynayaa waan reer miya
waa iyadoo reerku ay geed hoostii ku shiraanoo inta kabaha la wada bixiyo marka la sheekaystay la dhaqaaqo kabahaagi mid kaa xado dabeetana aad ka fikirtid talow kabihii yaa qaadan kara siyaasaddu waa noocaasi buu yidhi dhinacay doontaba ha u dhacdo kolley doctor fadal markuu inoo warramo dad badan baa fakar ka qaadan doona xisbiga waddani hawsha u qabto iyo mustaqbalka waxa uu damacsan yahay waayahay laba nin oo marti baa dhinacayga fadhiya waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo Siciid Budle oo isagu iga fara dhoodhooban oo garan karaya labada nin ee dhinacayga midig fadhiya xaafadda ay ka yimaadeen iyo meesha ay ka socdaan Siciid Budle soo dhawow oo martidaada soo dhawow بسم الله السلام عليكم waxaan ka cudur daaranayaa in marka hore Cabdiraxmaan baan ku waday inaan ku riixo isna anigu igu soo riixo sirtii ugu fahmay marka waxaan xasuustaa sheeko joog oo bari waxa ay Soomaaliya meelaha gobolada dhexe hada jeer la dacaydeeyo ya ninba imanayay wafdi oo ka qudbaleynayay meesha marka ninkii baa accident ku dhacay mise xanuunsaday iman kari waayo nin kale uu soo diray meeshii warkaale ka hadal meesha soo intii soo taagay buu yiri hebel oo walaalkay maanta maqane ana halkii walaalkii galaya marka Yusuf Buland maqashay nin badan oo Republicanka ku dhex jira halkiisi baan ku jiraa maanta oo saasan ku soo galay sheekada nin reer wadaniyan laakiin marka waxaan soo dhaweynayaa laba nin baa inala jooga oo aad Somaliland iyo arrimeega ugu faradhuuban xisbiga Republicanka ka socda Senator Dan Hall iyo John Herbergen oo ah CEO Minnesota Family Council group la yiraahdo dhowr jeer sheekadooda maqalnay berigii November last year referendum ku socday ee laga hadlayay arrimaha guurka iyo waxa ku saabsan dhaqanka iyo diinteena maxaa la moodaa marar badan markay ka hadlayaan in aad u fahansiin arrimaha family waxa ku saabsan marka aan sheekada ku sii dheerayn I'd like to introduce friends of Somaliland from the Republican Party Senator Dan Hall who will introduce his friend John Herbergen later on so Senator Dan Hall he likes mashharata he likes that one so I'll give you that yeah well I appreciate being remembered from last time but I certainly remember you from last time thank you for letting me speak today you're a wonderful group I've really enjoyed getting to know many of you I took my wife Valerie to the Somali Mall down on what is that it must be 24th and like 13th near Chicago the other day and she had not been there and she was amazed I said you're gonna feel like you're in Somaliland here because it's so different and she looked at dresses and scarves and the beautiful material and really enjoyed it for those of you that don't remember I live in Burnsville I represent Burnsville Lakeville and Savage which are suburbs to the south of the cities. I'm here representing the Republican Party because the Republican Party wants to get to know you better. And the reason we want to get to know you better is not necessarily for your vote, but for your respect. It is very important that we learn to respect each other, and the only way we can do that is to get to know each other better. So when I'm invited to things like this, I almost always try to make it. My wife asked me if I really had to go tonight, because I haven't seen her a lot lately, and there was a really good hockey game on tonight, but that's the way it goes. I would rather come here and meet with you. By the way, the Gophers hockey team lost tonight, for those of you that care. Which I'm sure you don't have hockey in your country, do you? No. Field hockey, yeah, maybe. So I've just got a few things I wanted to share. Again, my family, I have a big family. If you don't remember, I have 8 children. And last year I had 8 grandchildren. This year I have 9 grandchildren. So it gets bigger, yes. I'm for those of you who don't know, I am a Christian minister. That's what I've been for many, many years. Now I work for one of my older sons. He is a lawyer, and so I now work for him besides being a senator for Minnesota. The reason that I believe that we are a lot alike are because we hold true to many of the same morals,
We believe that family is important. We believe that abortion is wrong. We believe that raising up our kids. barnaamijkeeni baan gudageli doonaa intii looga hadlay martidii kale meesha ka hadashay markaynu ka gudubno waxaynu u gudbi doonaa aad baa hadalku usii gaaban doonaa waxaan ka codsanayaa dadka u yeeri doono qofka hadalkiisa soo koobaa wuxuu fursad siinayaa qofka ka dambeeya ee kale in isaguna uu hadal kooban sheego inta dambe hadalka ama khudbadaha dhici doona ayaa noqon doona qaarkood in safafka dambe ay fadhi ku maqli waayaan oo ay taagnimadaa ku dhegeysan doonaan sidaan filayo mar dhow isu dhici doontaa inkastoo berri axad baa soo gelaysa xoogay muusigan aynu isaga baahnayn qodooyinka xagga bidix naga xiga iyana waynu eegi doonaa haddii wax nagu soo kordhiyaan haddii kalena hadalkeenna ayaynu sii wadan doonaa guddoomiye ninuu ahaa xisbigan imika aynu halkan madashiis shirkan aynu fadhino ama xafladan aynu fadhino oo ahaa guddoomiyaha u jooga gobolkan Minnesota iyo guddoomiye cusub ayaa xilka la kala wareegay halkan xafladu ma ahayn markii xilka la kala wareegayeen laakiin Minneapolis ama Minnesota ayaa ahayd turba loo ciyaaray turkii nin baa badiyay ninna waa laga badiyay labada ninna garabkayga bidix buu fadhiyaa dhar cad buu soo gashaday ninna garabkayga midig buu fadhiyaa dhar madow buu soo gashaday labadaba waa soo dhaweyn doonaa laakiin labada waxaan ka codsan doonaa inay soo koobaan xilkii hore ninkii dhiibayay wuxuu qabtay iyo ninka dambe wuxuu damacsan yahay laba eray aan ku horeeyo mahad kaay بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dhammaan mudanaha marwada martida sharafta leh ee caawa halkan isugu timi waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan mar kale u mahad celinayaa dhammaan martidan sharafta leh waqtigooda qaaliga ah u soo uray caawa inay halkan yimaadaan oo nala weyneeyaan oo nagala qayb galaan xafladda qiimaha leh ee caawa ay fadhiyaan madaxda xisbiga qaar ka mid ah yani Dr. Maxamed Cismaan Fadal oo runtii dee wada garanaysaan maxaan ku dhahay xogayaha arrimaha dibadda xisbiga oo halkay naga fadhiya iyo marti kalaba marka aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxaan kaloo fahamsanahay oo dareensanahay yani qof walba waqtigu yani dhibta uu ku hayo siiba hooyooyinka aan ognahay inay maaragtay ubad kaga yimaadeen guryo aadna uga warwarayaan aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa waxaan rabaa inaan intaa ku daro halkan xisbiga Minnesota waxaanu ka bilownay 6 bilood ka hor iyadoo yani dadku dee dabcan xisbiga wadani ay og yihiin yani inuu ka jiray meel walba haddana ase community ase guddi ahaan waxaan halkan ka bilownay muddo hadda laga joogo 6 bilood inaan maaragtay ka samayno dadun baa bilaaba dad yar baan isugu nimid maanta meel fiican buu marayaa wax badan baanu qabanay waxaad maanta ka arkaysaa yani ما أورن كرد ضد كمان فليور ما هو وطني لكن طبعا ضد بدني ووطني مركا معلومة ما كده بس مركا حزب جني وسيب لنا يا ضد بدن بعمارتي ما شاء الله كسوق بيري ضد بدن بعمري مالك الله واحد تريس لمن الصورة هو طبعا ضد تسكع بابليين حزب جماعة مالك عم بمريا وبلادي علي أنا مركي هو قدوميكم مالك على غير دورتي سيرة يعني بوليسيga xisbigu shaqoonayo ama uu sheegayo waxa weeyaan qofka sabaxa uu leeyahay inuu xil ka qabto muddadiisu markay dhamaatana inuu si nadiif ah maaragtay xilka ugu wareejiyo cidii markaas marka muddo xeedkayga waa dhamaaday doorasho la qabtay ayay u fariistaano bil u sameeyaano waraaqo u sameeyaan anu ma garanayo mashruuc kale dawladdu leedahay oo gudidaas intii public ka dhigtay open bil u sameysay hadii beed maayo anu way igu yariyay runtii aad bi igu yariyay waxaanay ahayd iyada tii ahayd inay koriso
hay-addaasu waa halbowle hay-addaasu waxa weeyaan ta keliya ee dariiqii loo mari lahaa corruptionka xoolaha dowladdu around over $200 million bay raise garaysaa inta completelyna dowladdu shaqo ay qabataa hadii ma jirto waa dowlad yar marka qolada republican state doonayeen kala weeyaan waa dowlad ka kooban Somaliland waxay rabaan in dowlad kooban noqoto waa outsourcing shaqadeeda oo dhami contract bay bixisaa gaari hadii keenaysa ali hadii keenaysa wada hadii dhisiso kana hadii dhisiso de adeer lacagta waxa loo guraa cashuur badan bay gurtaa cashuurta si fiican bay u gurtaa very effective cashuurtaas waxay deynay dadka ku noqoto oo distribute garowdo oo goboladu boorm wax ku noqdaan oo cirgaabo wax ku noqdaan oo hadii bidmay laascaamad wax ku noqdaan oo burcay berbera ku noqdaan oo distribute garowdo bay ahayd laakiin afar qof hadii afka u dhigato waa mushkilad xalayna wadani taasoo idinka saaraya ma ogola waxaan leenahay wadani uu siinayaa dadka dulman ee la haybsooco ee hadii bidmaayo Soomaaliya oo dhanba ku dulman laakiin Somaliland runtii ay cadaanto bulshadeedu way ka bislaatay xalay TV-ga waryaran ka bixinayeen bay weydiyo wuxuu yiri cadaalad darro Soomaaliya oo dhan cadaalad darro ku samaysay laakiin Somaliland meelaha ugu dadku conscious noqdeen ee runtii dareemayaan inay dadkaasu dulum mujtamac ay qabeen walina ay qabaan weeyaan dawladda laga rabaa sidii dhulkan aad joogtaan ba loo sameyn jiray de inay soo saarto oo itaalkooda ay taabis inta qabsan karaan taana waan sameynaa tii dumarka loo diisay waxa naga filaysaan dawlad aan inta idinka dadkiina qurbaha jooga kursiga doonaysa oo soo hangalaysanin oo intii dabeetana abaarida ka dhaxrodo aanay dabeetana parachuted ku soo noqonin dalka taana uma sameynayno dalka waan isu furaynaa maskaxda halkaa fadhida anigu waxaan qabaa Somaliland awoodeedii maskaxda halkaa fadhida ku jirta horumarkuna waa maskax bini aadam waanu isku xidhaynaa waanu ka faa'iideysaa waa laga faa'iideynayaa Somaliland waxay leedahay waxaan qaran Suudaan man ka shaqayn jiray Suudaan baa sadar Suudaan sideena soo kale dibadda ka jooga hangool bay iskaga hayaan qof u yimaada ma jiro marka la iyo inta shaqayn jiro marka isnaano Somaliland ba ay ka sameeyeen adeer markaan dagaalamino inaga xarreynay oo soo raaxaysan anaga waxay doonayaan inay Somaliland sida maaha Somaliland waa dalalka adduunka meelaha ay isugu runtii isku milmeen waar waxaan jecelahay maskaxiina iyo kuwa shaqaysta iyo kuwa dalalka waxtarka ka ah inay yimaadaan Somaliland wassalaamu calaykum دكتور فضل دعاوى نبو هذا كله حالة تي في بالجو السنة سؤال اللي وديني أن قبل هو بلد ولي وفرق لين حاجة بوهرسن دبتنا إلى ميوزك ينا أي صوب بندقان بي ديارويهن أي شيء عدي أن كبرت إنه أنا دور سؤال ذو يدينا إنه وقت كفاية سنين وعن جعل لها سؤاله فن ينقف وفرت التاجو دبتنا سؤال شيء سأنو أدوسي دهرانه سكوبن وتلمامه aan ku bilaabo fariiso saaxib in baa halka farta taagaya koofiyada gashan greenka laba koofiyad waayahay ma xaba ka hor istaagay koofiyada cad bawda soo dama marda istaagtay anaan kala harin su'aasheedu waa kooban waxa weeye waxaan doonayaa inaad iga waranto gobolada cusub oo madaxweynihii hore daahir yaala sameeyay wax shuruuca oo ay gobolada ku noqdaan iyo arrinta xaalkooda waxay ku tala gasheen istiyaaq inaad looga yaro fikrad ahaan maxaad ka qabtaan asalaamu calaykum ما يقدر سيانا بس كان عندنا waxay la horta su'aal wanaagsan weeyaan runtii waana ajandayaasha taagna
runtii dee loo baahnaa in dee laga hawlgalo ajendayaasha maarata inaga yaraa mashaakilka inagu abuura doorashooyinkeenna waa taa waa iyaga iyo xuduudahooda arrintaa waxay la tahay horta su-aashaa waxaa dee xaq u lahaa baan u malaynayaa maxaa laga qabtay waxay ahayd inaan dowladda kulmiye in aynu weydiino annagu waxaanu qabnaa imika habka doorashadu sibuu ku socdaa wuxuu ku socdaa doorashadu baa ugu muhiimsan waxaa matalan dee ay soo gelayaan habka doorashadu wuxuu ku socdaa 6 gobole ayaa base u ah waa model wixii maarta dawo isku celcelin marka modelka lagu wada mitiday waxa weeyaan inaynu 6 gobol ka dhigno oo district aynaan u daadajin ee gobolka ay base ku ahaato ee annagu waxaan leenahay haddii xukunka haddaanu nimaadno waanu de shuruucda iyo haddii bayd maayo xuduudeynta public debate iyo qiimayn ayay dee u baahan yihiin mararka qaarkood xisbiyadu dee doorashay rabaan oo dadku marka qof dee gobol la siiyey markiiba adigu dee cunaa iskaga duuli kari maysid laakiin waxaynu gelaynaa anagu runtii dee idinmaan sheegin annagu waddani haddaanu nahay waxaanu qabnaa in ay inaga xidhantay wadahadalkii oo si aynu xal u doonno war dadkaaga haddaanad kaxaysanin oo waxaan intaad la doodo aanad dabeetana ogolaysiin laakiin haddaad dowladdu qalin iska qaadato 2 reer baa isku dilaya tuuladayadii baad soo gashay marka waxaanu qabnaa in waqtigeeda waanu u gondodegaynaa laakiin dad xilku wuxuu saarnaa inaanay nalala sugin annaga in dowladdii markaa la doortay kulmiyeyna qabataabay ahayd dad badan baa jaraa'idku waa waxa way rukun weyn oo ka mid dimuqraadiyadda laakiin maanta waxa la xiriira way fiican yihiin inay ilaaliyaan dowladda oo maaragtay iyo dadka oo ka faaluudaan laakiin iyaga yaa xisaabanaya dadku ma waxaa jira dad badan oon training lahayn oo jaraa'id diiwaan qabo mikrafoon qaatay ama website ama something oo ama dadka caaya oo ethics rules iyo waxba ma jiraan ma jiraan wax sharci oo ilaaliya ma jiraan marka kuwa ma odhan karo rabaan qabaa waxa weeye dad inay iyagiiba u baahan lahayn marka who will watch these people idinku ma uu samaynaysaan dad badanoo waxaa jira aan munaasib ku hayn xataa waxaan sameeyaa marka wax qabaa idinku what's your policy habayn dad ilaaliya iyaga oo inay xadadka qaarkood ka dhaafaan dimuqraadiyaddu waa messi waxay leedahay dictatorship iska hawl yaryahay oo awaamiir umad bixinaysa laakiin waa iska messi oo waa marka laakiin dimuqraadiyad maxaa lagu saxaabaa la yidhi dimuqraadiyadoo lasii badiyo baad ku sixi karaysa annagu waxaanu qabnaa xorriyadda saxaafaddu marka hore qawaaniinta dalkee basicska ah way jiraan cid walba xukuntaa saxaafaddana self regulation iyo haddii bad associationskeeda iyo maskaxdeedoo la dhiso ayuunbaa haddii bayd maayo lagu dee xakamayn karaa laakiin xadhig iyo haddii bayd maayo jaridad la xidho iyo journalista la xidho iyo criminal law lagu qaado midna laguma sixi karo mana qabno in lagu saxayo annagu waxaanu qabnaa in la koriyo qaybtaa self regulationka lowska kale ee defamationka iyo wixii la xidhiidhana in la koriyo iyagana associationskooda iyo industryga maaragtay karaamadiisa inay iyagu gudahooda ay ilaaliyaan code of conductskooda ay yeeshaan waana leeyihiin waa koraya xoog iyo xoog bay u korayeen midna waan kuu sheegayaa haatuf dowladdii hore jariidada ugu kulule dab iyo naarkaaba ahayd dowladdu aad bay ula saayirtay labadii maalmood ay 2 article qortay afkaa loo xidhay waxaas dulqaad maaha dowladdu waa inay dulqaadataa jaraa'idka dulqaadata tagii waad ku guulaysateen guuse weli ma dhicin marka waase aad baan ugu faraxsanahay
nimanka madaxda ka wadanina waan jeclaysay runtii fikradahooga aan ka maqlo halkan mishinkiina halkan oo ka arkayo cadaaladda ugu horeysa iyo nabadda iyo horumarkuna waa wax qurux badan weeye cadaaladda ilaahay baa dhammayn kara cadaalad ma jirto laakiinse waxaan arkaa cadaalad la'aan fara badan baan ku arkaa axsaabta iyo dowladda sidee loo dardargelinaya in cadaaladda intan ka badato oo ilan waa la wada leeyahay waxaana aanay reeruuni wixii wada qaadan ee la qaybsado su-aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeye maanta waxaan internetka ku arkay kelmad war aan ka naxay oo aadanan u jeclaysan golaha wada tashiga ayaa waxay yidhaaheen ashkhaas ay magacaabeen SNMta ayay la dagaalamayeen way ka soo horjeedaan yaan sir loo dhiibin yaan xukunka lagu aaminin aniguna SNM ma ahayn laakiinse Somaliland baan ahay marka ma heerka intii SNM ahayd unba xukunka lagu aamini doonaa maxay ka qabtaa wadani nimankaale SNM waxay la tahay su-aashii hore ee ahayd wax qaybsiga iyo dalka horaan u sheegay ani waxay la tahay payga xabadda inta yare dee dalka ka soo baxdaa sideennaba maahmaha Soomaaliya jirta يعني أنا نوران عانت شيء لا عبان درين ومركا شكل قبو لكن رنتي واحد قبل دولة إني أفرت كأوجو بدن جلسو إني في ديسو وايو ده واحد نقول عايز سيدي عشرتين عاصمة وحول بالقضاء إن قبل الله هذا ضدان إن هدي بيد ما يحل بدعان مركا تها واحد قبل ونقيمين إن أنا واحد نقبنا إن لقيبيو إن هدي بيد ما يميل ولا بقى عدالة دي هذا الشو إن تعب لجليو إن equity أي تماتو أنت أسلمتها أنا والله مركز قاركود بين أنا واحد قبا أسلم من دكتاتور دولة حلو دكتاتور ورنتي عدوة أي عدتك هالشيء دولة الدكتاتور كينا كل يوم ما يدين ضدك أسلم سبورت جريني سومالي لاند بيله هذا قوب دجال بكدكتي midaan ay cagta marin ma jirto midaan dad ka dhimanin ma jirto midaan ay dad ka dilin ma jirto bal horta marka hore inaynu iska xoreynay aniga waxay la tahay danteedna tahay aynu wada qaadano marka hore inagu waynu xisaabtami doonaa Somaliland waa la wada leeyahay burca lagu wada yeeshay beelaha aan SNM marka ka soo jeedin ayaa runtii instrumental u ahaa inay Somaliland samaysanto SNM xataa gudaheeda waa tii iska wada dishay haddaan beelaha kala joogin mabaynaan dalkuba muu jireen marka anigu waxaan qabaa maan arag kamana filaayo nimankaad sheegayso nimankan waa niman odayaala runtii bisayl badan na qaba haddii beed maayo u malayn maayo inay odhanayaan ما نرك ونما لين ما ينورنا يعني عديان لآمنين تلك ولا ودليه تلك مدح بالك صوّد النقضي أنت حدنا وكنا نقول كرتا سومالي لاند درسكا وذا له السلام عليكم. أنا ضمها ناس ملايكة ثم نجاش دونو يمدا وحسي عن الشيء أتيرو بريمة بيش تجانا عشقة دي نوشي عن كوانين مادام على بطسني مش جوتي سومالا نوح الله ميل باندري بالله ميل تورتري كونغرس كتير الله كا سومال بدن باندري تذكر وضو نقطة إنه ماشي وسود دقيقة والشجرة ما كان مسؤول كيا ما كذا بطالة اللي كان شيء هذا هناك سنة كهلا يسوع هنا على وراء إذا على فكير هذا جوجل بنفذنا يقول في دور في عطف كل لكن مسؤولية دور سنة سودا كان حتى عيسى صمم احترام وجود المركز اللي هذا حتى واحد في عام ورطة هذا الدوغان كهية فقدم لك سبحان مقامنا إنه جامع وأبنى هين تشتو إن ماشي الوظيفة لكن مين وكل يوم هين مبنى إلى السيا وقف كمان ماشي جوجا سي لك برير لك السيا كسر سافلي سنة كلامتو خاصة من سن كلامتو ضد كان أكو مشكلة غربات شو يعني كالية أنا شخصيا وأنا مسينا هاي أنا أقدر كلمة في رورا كم هرجيسة
ساشيء 70% وعروض يروح برتوه يجوا بحن ساشيء الشقة وضع كتير وحضرتك ما ندهنا هنا واحد ترى عقليين العكين كنا لكن عروض مش جوته شغال على الصين دراسة الدنيا إنه يمني كوا الدنيا مسكحية عقلي هي مالين اللي يمادان حلو يمادين بانيني وسيدا أنت أتشكتي ويان ويتشوغان runtiina dhalinyarada kortay Soomaaliland ku soo kortay qofkii de halkan meel ka gaaray hadii beed maayo markaa dan isiri aduna intaan ku biiri dadkaagii walda weeyaan laakiin way u qalmaan qeyrkood dhalinyarada imika aanu korinay dalka joogta qeyrkood waa u qalmaan waana qaban karaan shaqooyinka Somaliland midu man anigu tiri baan ku xoojinayaa Somaliland waxay inay ku tahay waxaan idhi beelihii baa isu yimi dal xoog nintu ku qabsaday generaalihii uu duni samaystay maaho dawlad dhistay reeraha Google dhigtay oo soo fadhiistay oo salaadiintoodii iyo SNM dushu ma ka ilaalinaysay laakiin iyaga wada hadlay midda waan idin sheegayaa gobolada cid dul saaran ma jirto dalka nin waliba halku deganaa iyo gabadh waliba halkay deganaayeen iyagu ba ka masuula go to borame awdal tag ila bintoniga ila gobornarka ila ka yani shalay imika wan year ba gobornarada la kala bedelay qolo waliba xafadoodi burcatag laba xafadood ba jooga labadii xafadood ba ila imika marka waqti ba la marayay qolo waliba meesheeda berberatag hargeysa waa caasimadii بدنا واحد قاتم في عيادة يحكم كذا أنت سنترال جومنت كنت تدخل كده حياة مركا هنقول عدي كلنا واحد ورا لها واربل هنقول ده لو ماشي عد وصارني بتشرتيه هلا هنتو أو هلا يمات أنا واحد تسيم كل كنت واسدة هذا ينسيدا مركا لدونيو تسيد ويترتا هذا يريم كم ويترتا هلا دونه أنا وين مركا ده ما قرنا يو بيل دو صارن أو هدي بيد ما يوم يأكل حكمته ويا وصاحبنا سؤالها أنت أصلا كسر كوبنا فضل عودة بهذه صاحب ما أنا هذا مثال أنا كداية أنا هذا رالي عاو تايم بيكو سعتها أضو عودة بهذه تلفزيون وقال وحقيقي صدق عودة بيوم مريا إنه يقولوا مرتينوية أنت هو ربع ودين سنة واحد كلمة ودين سنة وأرجو بعض الكرات أدام ندارو بعض وكذا ما هذا صار ولا صار سؤال شديد تسوي عن العين ودك الصور درك إيو دك بدما درير ودنا ليمين وأشعل عدالك وأفضل استعلم وأشعل كروم دلغات والكلمة هنيمي دلغات والكلمة هنيمي ددالك الدريقو
ودمان كريل ودنا ليبي قاعدني وأشار عدالني وأدرس قاعدني وأشار عدالني وأدرس كل من واوهيلو كيتنا داويه ودني درسو واسنان داويه وايو دلكيغا سومالي دلكيغا سومالي دلكيغا سومالي دلكيغا سومالي دلكيغا Thank you.
Somali